magaalada muqdisho iyo gobolada dalka waxaa ka curtay roobka guga goobaha ay roobkaasi ay ka da'een waxaa ku jirta magaalada muqdisho waxa ay saameyn dhanka nolosha ah ay ku yeesheen qaar ka mid ah dadka ku barakacay gudaha dalka qoysaska danta yar ee degan warta siigaale ee degmada hodan ayaa waxaa hadda la soo gudboonaaday hoy la'aan kadib markii guryahooda ay buux dhaafiyeen daadadkii ka dhashay roobka ay burburiyeen guryahoodii ka samaysnaa bacaha iyo cooshadaha goobahaasi waxaa tagay warbixintan inooga sameeyay wariyaheena jaamac maxamed saalax habeen ka hor magaalada muqdisho waxaa ka curtay roobka xilliga guga inkastoo dadka ku nool gobolka banaadir ay bisha maarso iyo abriil oo ay dhowr cisho ka harsan tahay waxa ay u ahayd xilli kuleelo ah taasi oo bulshada ay xag rabbi ka sugayeen in mar uun alle raxmadiisa ay ugu da'do si ay uga diirsadaan kuleelkana uga nafisaan roobkan mahiigaanka ah ayaa si kala go' lahayn waxa uu uga da'ay 17 degmo ee magaalada muqdisho wuxuuna biyo dhigay wadooyinka degmooyinkaasi wuxuuna sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay nolosha dadka danta yar ee ku soo barakacay caasimadda iyo duleedka magaalada wallahi roobkii hamee horta oo da'ay dhibaat weliba cashaba aatam ashay maxamed gaabo waxa uu ka mid yahay boqolaal qoys oo jilicsan oo guryo la'aan uu dhigay roobkani waxayna ku keentay in xilli habeen ah ay wadada hareeraheeda isaga iyo caruurtiisa uu waagu ugu bariyo hu iyo hoy toona ma haystaan cunno ay cunaanna iska badaaye cidna wax caawimaad ah uma fidin xilliganna wadada dhexdeeda ayay qoysaskani nolosha qotomisay minankiyo biyo ku jiro yaa jikadiyo wax lagu shidi karo الحمد لله رب العالمين شكر نفط هذه بإلهي أو نفط أو نضافي الحمد لله ما تاجنا ها لبعض تداس وحانو دليل حتى وح أو دبلو صار بقى تملا يا هورت شقة مارتي أو لخوئه أكش خيش أنا نويل هاي واسو هالجمي هدان محامه أو جو حمر أو كهاي سالي دوها بيرالي أسكنا ما هرا ما سنو هرا بيريدو بيا أخاد maamo raxmo sheekh waa maamo da' ah waxay ku nooshahay kaam ku yaala warta xaafadda siigaale ee degmada hodan xaaladda ayaa xilligan ku adag maadaama hoygii ay deganeed biyuhu ay buux dhaafiyeen intan jiifnas ma soo galbiya waano buux intan dhex jiif sariiraha waa ujeedi shay waa ma loo baahna banaankaas markay soo sartaas banaankaas seexani oo taan dhadru dhisi عدنا لا ساعات كجيفنا ما نروح له كرسي ما بجده هي أنا سو كرسي وأنا قعدتها nolol adag ayay qoysaskan dhexda kaga jiraan cidna caawimaad kama helin iska badaaye cid xaaladooda ka jawaabaysa ma jirto balse waxay codsanayaan in gargaar lala soo gaaro waqtigan waa kan mar kale oday maxamed iyo maamo raxmo taan waa dalbiyo hayna oo wax oo guryaha la saara salmaantana saxuu aan ku saari kuwa taan oo nolol keeno yaa hunguri la'aan waana hayshay cabadii hadii soob nu yimaad banaankaas iska saxnay doonkaas disfeero doonkaas aan fara bari gurihiisa saaras rafaadsiin gudaha hadii gashi harta ka waani u jirmaane gudaha ma cabada ma wala saaxa karabo ana raxma sheekhe ina naga soo gaarsatay dawladaan aan ka codsanaynaa raashin qaraabadayna waa wada baqtiyo hayna nafnu jirto naga soo gaarsiya wadadan jiifanaybo ninkii guri oo kale xataa adiga oo labeen baahat oo ilmihiisina qaadi karin wadadaas ka seexdo hay hadii roob yimaadna haddana waxa ummad islaameed la isku tuugo hay waxa meel oo ilmaha oo horsada alaysi ninkii walaal oo muslim kan ninkiis waxa uu leeyahay jirida xumaaba socotay iga baxa adina meel u baxid malaha dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daahfuray mashruuc loogu magac daray Baxnaano kaasi oo ay dawladdu sheegtay in lagu samata bixinayo boqolaalka qoys ee danta yar ah balse waxa xusid mudan in kala hore dawladda ay shaacisay in dib u dejin ay u sameynayso qoysaska danta yar waxaana mashruucaasi iska kaashanayay wasaaradda ka hortagga maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir wallow ilaa iyo hadda mashruucaasi ma uusan dhaqan galin oo loogu talagalay dadkaasi u nugul xaaladda nololeed ee xilligan ay ku sugan yihiin barakacayaasha jaamac maxamed saalax
Shabeelle TV Muqdisho. haweeney Soomaali ah